dadkan waxoogaa walwal waxay ka qabaan maalmahan yani doorashooyinkan soo socda iyo sidee wax noqon doonaan iyo goboladan isdiidan iyo baarlamaanka isku khilaafsan yahay iyo waxyaabahan la sheegsheega horta kulli markaad isku dartid innaga inaween soo dhex bixin ummadda Soomaaliyeed ikhtiyaar ayadu ay leedahay wax ay ku samaysatay ma ah niman kale ay noo sameeyay maal bageed ay ina geeyaan saan yeelahay dadka marka cabsida ka qaba waa la burburaya saana la noqonaya horta markaad burburayso ina adu wax ku dhisay inay ka burburayaan ayaa lagu burburaa laakiin adna wax ma la dhisana waa lagu dhisay kuwii ku dhisayna inay burburto intan yarta maba rabaa maxay u burbureen baad yar oo garoona lagu dheelaa Soomaalida loo sameeyay baad bas garoonka weynaa ma ayaa ilma dhalinyaro yaqaanaan Soomaalidan waxa loo sameeyay maxaa loo yaqaanaa garoonka yar xaafada garoon baadka lagu dheelaya ka weyn stadiumka ma ah Soomaalidan waxa loo sameeyay baadkaas yarka ah magacina waa loo kala bixiyay maamulo oo magac leh ka laakiin hoos wixii maamul lagu yaqaan aan ahayn baadkaas asaan isu shaaftayneeni shaafta laka kana laka saan u laha garoonkii weynaa ee caalamiga ah ma soo gaarin dadkii marka baadka iska laha way joogaan baadkoodana way ilaashanayaan inaga waxa la rabaa Soomaaliya hadaan nahay sidii baadkan uga bixi lahayn si kale oo baadka uga baxaynana ma jirto ilaa inaga in is ogolaano maxaa la inoo kala hayaa horta maxaa la inooga dhaadhiciyay idinku ma heshiin kartaan idinku isuma imaan kartaan idinku mis aamini kartaan way hadaan inagu is aaminin yaa in is aaminsiinaya cid in is aaminsinaysa ma jirto haye maxaa la rabaa marka inaydan is aaminin ayayba hawshu ku socotaaba hay is aaminina oo way maxaan sameeynaa saan iska ahaada maxaa idin ka maqan meeqa mar aysan qisadii oo Suudaan ay sheeynaa inta taariikh soo socdo inta Suudaan ugu soo maray ya arday baa jaamacadda u baneeyay meesha uu seexanay ninkan uu boogay isbuuca meesha lagu hayo oo lagu qaqarinay ardayna meel iska seexanay marka dambe uu warniyo dhageyso aan meesha ku rafaaday adna meesha u socotay ama Liibiya taariikhkaaga sii wado ama Soomaali u noqoniyo aniga sariirteeda oo baahanahay xur aad maalintu dhaaday ani maxaa iga maqan waa cunooya waa cabooya waa jiifay marka hadaba Soomaali baadka inoo tahay waa cunoynaa waa cabooyna maxaa naga maqan baadkan iska joogno hadayna sidaan xal ahayna gobolka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel ka soo joogto intaan fikirno aan dhahno sidaan dan inoo ma ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maxay meeqa sano hadda joognaa meeqa sano oo saanana hadda mesela inta saan la inoo kala ahay meeqa 30 sano soodana saas ma 20 sano ugu dambeysay oo saan natiijo lama gaarin haday saan si ahaatana natiijo kale la suumi jira saan la si ahaana kolba xaq warad ilaa runta looga soo daadago oo ah mu'miniin soo matidiina ha ya ayuha alladina aamanu dadki ilaahi nabi rumeeyo aamanu iimaanku wuxuu keenay moogta quraanka inaan rumayno oon ku dhaqanno nabi muuse ilaahi soo saaray markaas fircoon intuu la hadlay wuxuu ku yiri waxaan kuugu imid an arsil macana bani israa'iila wala tu'adhibhum dadkan aad gumaysanaysa caruurta ka laynaysa inta iska dayso xurriyad ha gaareen ani ugu wareejiyo iska dhaaf adi saraac baa dhex maray saaxir baa tahay intaad ka imaatay muddo dheer ka bacdi adiga oo hawshaasi ay socotay ilaahi reer banu israa'iil uu gargaarayo fircoon biyaha intii lagu dhaxriday ayuu wuu qarqoomay reer banu israa'iilkii fircoon laga halaagay maxaa la rabay marka inay ilaahi u mahadiyaan nabi muuse waxa lagu yiri reerkaagan reer banu israa'iil ah ilaahi uga mahadiyeen xusuusi maalmihii nicmada waa si hadaan isu xusuusinayno maalaha xurriyada laakiin sida ay ahayd si aanan hadaan u qaadano waa mushkilo nabi muuse waxa lagu yiri an ikhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami illah yaani qowmkaaga ka bixin mugdiga ay ku jiraan oo gumaysiga iyo dib u dhaca wa dhakkirhum bi ayami illah maalmaha ilaahina xusuusi maalmahan marka hadal is xusuusinayo oo leeyahay maalmihii xurriyada Soomaaliyeed waxay soo hosgalaysaa wa dhakkirhum bi ayami illah maalmaha ilaahay oo la xusuusiyo quraanka ka sheekay marka waxa la yiri reer banu israa'iil waxaad ku tiraahdaa waxaad xusuusataan nicmada ilaahay wa idna jaynaakum min aali fir'auna wa id maxayta id wa waqti mogta wa zaman wa xilli hada inaga soo xiliyeen oo ma astaysana maalinta midalan 26 juun 27 juun oo Djibouti ah 20 iyo macna 1 July oo ah maalinta yaani midowga ummadda Soomaaliyeed iyo xurriyadii waa maalmo wal is xusuusinaya waxaad xusuustaa in maalintii ilaahay uu idinka badbaadiyay fircoon idna jaynaakum min aali fircoon yasumuunakum su'al adab muxuu sameyn jiray yudabbihuuna abnaakum wa yastahuna nisaakum wa fi dhalikum balaa min rabbikum adiim
نعمة الله سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر ما حصوصتان حلقي أن بدأ يدين دنبلني ومركو فرعون سوئر يني وأصحاب موسى إلى هايين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون الله وانا لسوقاري قال كلا إن معي ربي سيهدين إلهي بودينا الصين أيها عبصننا وانا موسى وشعض وحا كل فتها بدأ أو كل فتي فانفلق فكان كل فرق كالدود العظيم وفرعون بدي انتو صوق لي أسي عيدا كيسي لسكفر بيه وكفتها مي وبيه أي قادين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون محير هذا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة dad bay soo mareen oo sanam caabudaay waxaan Muuse annagana sanam noo sameey meesha noo soo dhig annagana caabudne nabi Muuse wuxuu ku yiri ghayr Allah abghiikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin ilahi ghayrki ma idin sameeyaa waa dadkii hadda soo gudbay markaas markii waxay yiraahdeen lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan ilahi baan kitaab ka soo qaadeen baad nagu haysaaye horta ilahi kitaab ka soo qaaday ilaa aad naga tusto waa kan aad dhahdid ma ku rumaynayna maxay ka qaadeen ayagana nabi Muuse markuu ku daaray ilaahay wuxuu ka bari wuxuu rabbi rabbigayow inni la amliku illa nafsi wa akhi dad meesha kuma hayro aniga eber inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawm alfasiqin anaga dadkan ilaahuna kala saar waan isku dhunsanahay ayaguna meel kale u socdaan anna meel kale u socdaa ilaahuna kala saar ilaahay wuxuu ku yiri innaha muharramatun magaala ay degaan ay ku sugnaadaan xaaraan ay ka tahay 40 sanatan 40 sano yatihuna fil ardi dhulka ay ku wareersanaanayeen ballantaas la qaad bismillaahir rahmaanir rahiim taan dhahno oo aan dhinacyada fiirino oo aan iswalaashano oo taariikhdan dib u akhrino oo wixii lagu rafaado waa laga leexday Soomaaliya wax ku maamaadaan dab markii lagu gubto dambiskiisa laga carray dambiskiisa ma ka carnaayo ummad Soomaaliyeed oo diinteeda iyo aqeedadeeda haysata oo islaamnimadeeda ku dhaqanta oo walaalo islaamka ku ah oo qabyaalada iyo nin jeclaysiga iyo masaalixda gaarka iska dayso oo kor u kacada si lagu asaasay ayaa la rabaa laakiin haddaan sidii uu ku wadno oo meeshii aan ku dhamayn haddana aan ka soo bilowno 60kii soo hadda lama dhihin shariicada xagga lama aadin hadda waxa qoran oo leeyahay wixii yaani ku meel gaarka dastuurka qabya qoraalka laga waayo 60kii ah waxa loola noqonayaa kii 60kii marka waa koox haddana ka soo bilow 60 kale oo yatihuna fil ardi ah wixii inta laga waayo 60kii loola noqonayaa oo maxaa 60kii isku baahi maniin isku waqti maniin hadda dhalinyarada joogta iyo odayaasha jooga maxaa inoo dan intay dhahaan wadankeena sideebaan ugu heshiinaa oo walaalo ugu noqonaa ma la samaysto ma la samaysan maxay jidkiiba looma socdo sidee noqon lahayd in islaamka iyo hanuunka iyo diinta la raaco ma la ogolaadee lama ogolo oo maxaa loo ogolaan laayahay waxa loo ogolaan laayahay awoodda aad isku halaynayso inaad wax ku noqoto aad rabtidba awood Soomaaliyeed ma ah marka maxaa sameynaa adiga marka awood Soomaaliyeed